Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan rag hubeysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab in ay hadda ku jira isla markaana si toos ah ugu dhex dagaalamaya gudaha hoteelka Maka Al-Mukarrama sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya halkaasi. Qaraxyo iyo bambooyin gacanta laga tuuro iyo rasaas xooggan ayaa laga dhex maqlayaa hoteelka Maka Al-Mukarrama. Rasaas xooggan ayaana ka dhacaysa gudaha hoteelka. Dad badan ayaa ku xaniban gudaha hoteelka kuwaas oo u baahan in la badbaadiyo. Hay-adaha amniga weli war rasmi ah kama aysan soo bixin, balse ciidanka gaarka ah ayaa goobta ku sugan iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Saraakiisha ammaanka iyo kooxaha gurmadka degdegga ah ayaa xaqiijiyay in dhimashada ay hadda marayso ugu yaraan 15 qof halka dhaawacu uu yahay 40 qof in ka badan. Ilaahay waxaan ugu baryaynaa dhammaan ummadda halkaasi ku dhiman Ilaahay inuu soo badbaadiyo. Waxaan idinkaga baahanahay duco. Soomaali walba meel allaale meeshaad joogtaan fadlan sheer gareeya, walaalkaana waa sheer gareeya. Ilaahay inuu dhibka ka qaado ummadda dhibaataysan. Wixii wararaan waxaad kala socon doontaan barnaamijyadeena xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.